ciidamada ammaanka Galmudug oo iskugu jira daraawiish niso iyo booliiska degmada Hobyo ayaa howlgalo ka sameeyay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalo xebeedka Hobyo iyadoo howlgalada inta ay socdeen lagu soo qabtay dad ka ganacsanayay waxyaabaha ammaanka dooriye sida qamriga iyo xashiishka. Dhanka kale ciidamada ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan dad falal ka geystay magaalo xebeedka Hobyo. Wafdi iskugu jira xildhibaano ka tirsan maamulka Galmudug iyo maamulka gobolka Mudug ayaa soo gaaray magaalo xebeedka Hobyo iyagoo wafdigan uu soo diray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor si ay u kala dhex galaan muran maalmihii la soo dhaafay ka taagnaa magaalo xebeedka Hobyo. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadlay maamulka degmada Hobyo oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin howlgaladan ka socda magaalo xebeedka Hobyo. ka jawaabistiisii dadkii dambiyada galay eedahana loo haysto soo qabashadooda dhibaatada ugu daran oo ay u soo gurmadeen ay qayb ka tahay waxa sababaya waxa dhanba inay yihiin oo la ogaaday mukhadaraad sida khamriga xashiishada iyo waxyaabaha maandooriyaasha ah oo dad isticmaala ay dib weyn ku hayaan magaalada Hobyo. Muddooyinka dambe waxaan ogeyn in magaalada Hobyo ay ka jirtay dhibaato ah in xataa la gaaray salaada cishaha inaan loo soo bixi karin salaada subaxna aan la soo aadi karin sababo dad balwad daraag khamri iyo xashiishad isticmaalaya awgood oo magaalada ku soo yaacay ka kaliimay deegaano laga xaalufiyay oo howlo ay ka qabatay Galmudug halkaan ay u noqotay base ay ku dhoomaaleystaan ayagoo ku tuhmaaya awood yari inay ka jirto laakiin nasiib wanaag waxa la uga mahad celinayaa maanta in awood ahaan ay dareemina doonaan waxa ay sameynayaan inay dawladdu jawaab ka bixin karto. Dhanka kale isla goobta waxaa ka hadlay taliyaasha hogaaminaya howlgalka ka socda magaalo xebeedka Hobyo. mahad bacdigeed ama amirtana loo soo jeediyay ciidan ahaan annagu waa soo dhaweynaa waana ku qasbanahay waana qaadanaynaa ciidan baan u nahay dhammaan aad baan kugu mahad celinayaa. annagu dawladda amarkeedan fulinaynaa howlgal baa halkan ku nimid dadkii dambiilayaasha wax waa qabanay wixii kalena waa ku daba jirnaa waana ku qasbanna dawladda amarkeeda inaan fulino. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Isxal ayaa sheegay in howlgaladan ay joogto ka noqon doonaan magaalo xebeedka Hobyo iyagoo lagu soo qaban doono dadka falalka ka geysta magaalo xebeedka Hobyo. madaxweynaha dowlad gobolka Galmudug wasiirka amniga oo barnaamijkan ka dhiidhiyay una soo diray xildhibaano iyo maamulka gobolka oo ayagana u mahad celinayaa. waxaan kaloo mahad celinayaa xildhibaanada dowlad gobolka Galmudug oo maanta iyo shalay ku howlanaa deegaankan dhibaatada ka dhacday ee khamriga iyo xashiishada iyo dadka la hajuumayo u jooga inay tilaabo ka qaadaan ayagana u mahad celinayaa. maamulka degmada ciidanka daraawiishta nisa iyo booliiska oo kaabahaya taliyaha booliiska adinkana waxaan wadi mahad celinayaa. dadka makara khamriga gada iyo midka cabahayana yeysan moodin in howlgalku intaan ku egyahay sidii gaalkacyo $50,000 $60,000 oo kharashka dadka soo gala loo gubay baan loo. Xildhibaan Yoodis Maxamed Shaare gudoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka Galmudug iyo xildhibaan Baashi ayaa bulshada reer Hobyo ka codsaday in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka Galmudug sidoo kalena howlgaladan ay ka sii socon doonaan magaalo xebeedka Hobyo. maanta waxaan meeshan ku soo gaarnay indhayn aan ku wadna dhibaato meeshan looga soo sheegay oo hadda ay ka hadleen dad badan oo igu horeeyay. waxa aad aragtaan waa magaaladii Hobyo baadiyaheedii daaqsinkii waxa aragtaan waa xoolihii waxa aragtaan waa reebaadihii dhulka ay deganaayeen. dhibaato laga soo bilaabay magaalada ayaa meeshan soo gaartay. dawladda Galmudug iyadoo ka duulaysa dhibaatadii ka soo dhacday meeshan ayaa waxay ku timid inay indhayso wixii aan ku aragnana waxa haddana aan isla wadaagnay hay'adaha ku shaqada kala ammaanka insha Allah ta'ala ha lagu bishaaraysto Galmudug waxa u dhalata dawlad ilaa ay deegaanka baadiyaha wax ka qabanayso. waxaan meeshan ku nimid amar madaxweyne iyo wasiirka amniga oo quseeyay xaalad ka jirta meeshan waxa la yaab leh igu noqotay in magaalada Hobyo 15 kiiloomitir
oo cidihii miyiga ay joogaan oo xoolihii daaqahayaan oo carruurtii joogto in kuudad la kor dhigay marxaladdaa ka taagan waa dareemaynaa dadka deegaanka waa dad wada dhashay laakiinse dano shisheeye iyo gacmo badan baa ku jira dowladda galmudug ayoo ka duulaysa ayay meeshaan timid gacmahaasna waa la og yahay qofkan haddii la og yahay waqti dambe iska lumiya ma aha waxaasoo dhan waxa aabbo u ah qamriga xashiishka iyo dhibaatada laga soo suuliyey degmooyin badan oo galmuduga oo yimid magaalo xeebeedkii oo ah ishii ganacsiga galmudug suurtagalna aysa ahayn in maanta aan markhaati ka noqonno annoo naftu nugu jirto dowladdii galmudug nooshahay awooddeedu muuqato galmudug ay dhaqaaqday in maantay galmudug laga shaqeeyo inaysan dekad dhisan mashaariic imaan horumar imaan laysku dhufta beelo wada dhashay laga shaqeeyo amni darro dhexdooda raggii odayaasha deegaanka oo qaarkood warbixin aan ka helnay waxay qaarkood yidhaahdeen cisho aan tukanno wakhti dheer baa nugu dambaysay qaybo ka mid ah waxaasna waxa weeye midda dhexdooda oo qamrigaas iyo wiilashooda ay dhaleen tarbiyala'aanta ahayd caaway waxaa ilaahay mahaddiisa ninka ugu sukeeya ceelhuur iyo wuxuu tegey cadaado iyo wisil xogta waan haynaa mana layskaga harhayo waa laga warqabaa meel walba uu joogo magaciisoo saddexan baa la hayaa wasaaradda amniga haysa meel walbana wasaaradda amniga galmudug baa joogta mana lagu dhaafahayo ilaa uu toobadkeen kaga soo laabto waxa uu ku jiray oo faraha ka qaado waxaasoo dhanna waxay fududaynaysaa in deegaankan quruxdiisa iyo bilicdiisa iyo niyaddii loo qabay iyo horumarkii uu burburo wax la fiirsan karana maahan howlgalladan ayaa imaanaya kadib maalmihii la soo dhaafay shaqaaqooyin ka taagnaa magaalo xebeedka Hobyo